وهاجاك دقيستيالي مكانا وحا كسو دواتان قايبتي أفراد برنامجدي حرير كانو كغهليني تاريخ تا سوماليدا برنامج كهورنا وحا قدام بيان كسو قادنا markii boqorkii dalka Ethiopia boqor Haile Selassie uu ka sheegay magaalada Qabrita Hare in dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee reer Ethiopia inta kadib hadaba waxa sii xoogobay doonistii Soomaalidu ay doonayeen inay madax banaan helaan koonfurta iyo waqooyigaba iyadoo markaas ay hormood ka hayeen xasaabtii SNL iyo SYL bishii December sanadkii 1959 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxa ay gaareen go'aan lagu soo afjarayo xilligii Talyaaniga loogu dhiibay koonfurta Soomaaliya inuu maamulo waxaana ka dhigeen waqtigaas inuu noqdo bishii July 1 sanadkii 1960 waxaana taas laga soo horeysay waqtigii markii hore loogu talagalay muddo 6 bilood ah Umar Ata Qalib oo ka hadlaya ololihii gobonimo doonka bal hadda mar kale aan ku celino bishii May 1959 ayay soo saareen qaraar ay leeyihiin waxaan siinaynaa xorriyad istiqlaalkooda ha qaateen 17 February ee sanadku markuu 60 yahayna election ka dhaco doorasho ka dhaco halkaas aad safxad cusub ka bilaabantay markaas dadkii kaceen oo maxaan ku yiraahdaa shucuurtooda samada tagtay yar iyo weyn rag iyo dumar markaas aad afar xisbi oo siyaasadeed ayaa markii waqtigii yimid ka qayb galay doorashadii SNL NUF USP iyo SYL doorashadii markii la galay waxa deeto helay aqlabiyadii xisbigii la oran jiray Somali National League 20 kursi ayuu helay USP waxay heleen oo la oran jiray United Somali Party 12 NUF National United Front kursi buu helay halka waxaan doonayaa inaan wax yar ka tilmaamo markii dariiqada Ingiriiska la xisaabiyay dadkii vote ka bixiyay SNL iyo USP waxay heleen 55 boqolkiiba 55 NUF-na dadkii markii la xisaabiyay waxay heleen 45 boqolkiiba 45 laakiin haddana nidaamka Ingiriiska ayaa ah kursi walba laba nin la kala dooranaya haddii mid keeno kun ka kalena uu 990 keeno ka kun ka helay amba la siiyay u qaadanaya sidaas awgeed ayay taasi ku dhamaatay kaasi waxa uu Umar Ata Qalib oo ka hadlayay sidii lagu helay gobonimada iyo doorashadii ka dambeysay bishii May hadaba labadeedii ayaa hogaamiyaal ka socday Somaliland ay yimaadeen magaalada London si loo jaro xiriirkii isticmaalka ahaa ee ka dhaxeeyay Ingiriiska waxa waqtigaasi loo ogolaaday in xornimadooda ay qaataan 26 Juun sanadkii 1960 wafdigii barigaasi London yimid waxa kamid ahaa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal barigaasi waraysi u siiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da waxa uu Cigaal ku yiri waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd secretary secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda darsantiin baan maraynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxaan ma dawladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asaxaatee inba meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dawladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay dabta labadii casho horaan saragnayba baadniin arrinku la baarayay dadka meesha joogay iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baarayay bixi hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1 July 1 inaynu dawlad ahaano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiis noqday Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waxa kaloo isla maalintaasi ka hadlay hawsha u taala dadka Soomaalida dawladnimo loo qayliyaa dawladweynaha doonina la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylinay helay dawladnimadiina asaataka ka adag wuxuu yaariga ka sii adag maanta aynu isaga madaxa la galay helay dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamaynay kaas way naga tagayeen July maalinta July baynu walaalin Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu talinayna markaana ku hadhay baa hawle haysaaye talada maanta
tala weyn weeye inaynu isu talin karno wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leenaga bax ajnabiga inagii maanta leenoo kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa ina eegaya ilaahay waxaa inagu la qabtay وما هذا اللي ما انتبه دنيا كم بيننا ما تهينيو ما بيحب بنان ما بيحب بنان وما هذا اللي ما بيحب waa tahay dhegaystayaal haddaba soomaalidii talyaanigu xukumayey iyo tii ingiriisku xukumayeyba waxay isu tageen oo ay midoobeen bishii juulaay kowdeedii sanadkii kii dhinaca waqooyiga ayaa 4 maalmood xornimada ku horreeyey maalintii calanka la saaray magaalada hargeysa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timacadde isagoo u gabeebya calankii la saaray waxa uu yidhi calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare saahidiinta islaamkoe subcisaa jimcayaashiyo sibyaanta iyo haweenku calankaysa hadsheenow cidina kaanayna siinine saatir noogu yaboohayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare allah u naxariistee cabdilaahi suldaan timacadde oo ka gebiyey habeenkii calanka la saaray magaalada hargeysa intii haddaba aanay labada gobol aanay xornimada qaadan waxaa muddo laga wada hadlayay sidii loo midoobi lahaa arrintaasi sidaa u dhacday waxay noo faahfaahinaya mar kale cumar arte qaalib shirkii ugu horreeyey ee somaliland baarlamankeedii uu qaatay ayaa wuxuu u diray taar soomaaliya baarlamaankeedii oo markaa uu madax ka ahaa aadan cabdulla cusmaan iyagoo leh haddaanu reer somaliland nahay baarlamaankii masilayana aan nahay waxaanu doonaynaa inaanu mid noqonno calan keliya yeelano dawlad keliya yeelano iyadoo aan shuruud lahayn waxaanu doonaynaa arrintaa inaad si degdega wax uga qabataan noona soo jawaabtaan baarlamaankii soomaaliya aad buu usoo dhaweeyey arrintaas mabda ahaan laakiin kumay degdegin oo markiiba umay soo jawaabin markii dabadeed arrintaasi sidaas tallaabadii ugu horreysay ay saas noqotay ayaa aadan cabdulla cusmaan oo markaa baarlamaanka madax ka ahaa ayuu soo diray wafdi uu hogaaminayo dr maxamed sheekh gabyo oo markaa ahaa minister of constitutional affairs yacni wasiirkii arrimaha dastuurka iyo dhowr nin oo kale oo ula socdo nin talyaaniya khabiir talyaani ah oo ingiriisida si fiican u yaqaan waxay markaa kusoo horreeyeen unionkii aan idin sheegay Somali Officials Union oo aan saan hore sheegay ahaa aad iyo aad awood xooga lahaa dawladuna ixtiraafsan tahay dadkuna ixtiraafsan yihiin marka maadaama aan sharaf u yeeshay inaan madax ka ahaa oo odayaashii qamaamuurta sharafta lahaana ay guddida fulinta ay ka mid yihiin ayaan isugu yeelay shir waxaan idhi arrintaasaa layna weydiiyey waxaan jecelahay inaynu ra'yigeena ka dhiibano taasoo ah maxaad waxaanu maqalay Somaliland waxay u imanaysaa Soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo maxaad shuruud haysaan odaygu wuxuu ku soo adkeeyay wafdiga waa in shuruud la yimaada intaan midnimada la hirgelin markaa deeto markii aanu shiray waxaananu la nimid
amba soo gudbinay shuruudda soo socota haddaan idin xusuusiyo annagu markaa yacni powerka siyaasiga gacanteeda kuma jiro laakiin waa urur cid waliba dawladda ingiriisku ay taxgeliso dawladda soomaaliyeed markaa dhalatayna ay taxgeliso dadka soomaaliyeedna ay taxgeliyaan waxaanu shuruudda soo socota qodobkii u horeeyey wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed midaysani hadduu gees noqdo amba somaliland amba soomaaliya prime ministerku ra-iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa waa qodobkii ugu horreeyey qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan 60 iyo 60 qodobka saddexaad wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiicana loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay qodobka afraad haddii caasimaddu ay meel noqoto xataa maanu odhan muqdisho safaaraddii caasimadda timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale jeyshka waddaniga ah waa in nin sarkaalah oo labada geesood ka tirsani uu hogaamiyaa booliiskana sidoo kale yacni la qaybsadaa midna somaliland ay hogaamisaa raggeedu midna soomaaliya raggeedu uu hogaamiyaa shaqaalaha dawladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka la odhan jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo waayo waxaanu ogaanay xagga soomaaliya koonfurta in mushaharku aad iyo aad u hooseeyey jamhuuriyaddii soomaalida ee dhalatay wixii ugu weynaa ee barnaamijka u noqday waxay ahayd sidii loo rumayn lahaa soomaali weyn dhibaatada arrintaasi ay lahayd ma ahayn mid dawladdii soomaalida ka qarsoonayd ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee labadii gobol ee midoobe ay yeesheen oo ahaa cabdirashiid cali sharmarka allah u naxariiste oo arrintaasi marka hadlaya waxa uu yidhi nasiib darrada nahaysaa waxa weeye in waddamada afrika ee deriska aanu nahay ee ay tahay inaannu ka shaqayno kor u qaadidda xidhiidh saaxiibtinimo iyo nabadgelyo oo na dhex mara inaana ahayn kuwa iyagu deris ama jaarka noo ah wax deriska iyagu yahay soomaali aanu wada dhalannay oo dhalashadoodii ay ka been sheegtay soodin aan loo miidaandayin waxaannu wadaagna af habnololeed dhaqan iyo diinba markaasi sidee ayaannu walaalahayo uga dhigi karnaa dad shisheeye ah 29 bishii abril sanadkii 1961 ayuu cabdirashiid ereyadaasi ku dhawaaqay qaybtii afraadna intaas ayay ku dhan tahay sidaa iyo nabadgelyo